أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما أنتو حنبرنينا مارتي عشر كيسة دحات وكدونيا كوي هراء كلها سيدا هراء الشيء عربي بوسوحوغي سنة إن شاء الله. marka sida uu la qabsato waa in kuwii hore insha Allah soo barataa maaragtay. Before I started maaragtay waxaan rabaa inaan idin raahdo ciid mubaarak, ciid wanaagsan, kullu caam wa antum bikhair insha Allah. cashirkeena waan guda galaynaa insha Allah. webkan wax ka baranayna waxa maaragtay Madina Arabic, YouTube-kii waxa way maaragtay logo yarawaan, Facebook groupkii waxa way tafsiirka quraanka. Okay, maanta waxaan baranaynaa alif ilan oo maaragtay magacii laga hormariyo. ingiriiska hadii la waxay dhahaan the alif walamka wuxuu keenayaa maaragtay iyo wuxuu maaragtay hadii alif la'aan tahayna alif ilan haddaan lagu qorinna maxaa isbedelaya. taasaan sharaxayna insha Allah. video ku saabsanna waa soo gelin doonaa. waa lessonkii saddexaad, number 1. dhowr number waa maaragtay wax weyn ka baranaynaa insha Allah. hal tusaale oo muhiim ah oo arkana casharka gudihiisa ama dhamaadkiisa inaan raacayaan jeclahay haddaan xasuusto insha Allah xasuusanaya. wax muhiim ah oo arkay aad iyo aad oo tawxiid ku saabsan oo in laga hadlo mudan inaan kusoo qaadano waa jeclahay insha Allah. laakiin hadda ma bilaabayo xoogaa markii alif ilanka la fahmo. okay. sida loo akhrinayo labay u kala baxdaa, laakiin hadda ma guda galayo because casharkan ma cover karaynayo, ma kuma xusna. marka inakum buuq idin geliyo ma jeclay maaragtay inta waxaan isku dayaynaa meeshaan ku ekaado. okay. baytun waa guri. albaytu asal akhriya alif ilan waa isku dhijiyaa. qoraalkana waa arki doonta waa hore soo qaadano kaleeyo alif ilan baa la socda. albaytun baytun albaytun clip box ma kartaa waa dhageysanaysa oo qornaa baytun albaytu. okay. baytun waa guri. qof baa weydiisay xaggee joogtaa, tusaale ahaan yani guri buu ku yiri. guriga ma taqaanaa? maya, waa nakira. ma taqaanin nakira iyo macrifa la kala dhahaa. alif lamka waa macrifa, nakiradana waa alif lam haddaysan jirin. hallo haye xaggee joogtaa? guri. gurigee ma garanaysid? gurigee waa inaa weydiisaa. just waxaa keliya og tahay maaragtay inuusan meel kale joogin, uu guri joogo. yani cafe ma joogo, masaajid ma joogo, banaanka ma taagno, something like that. guri aan joogaa, laakiin guriga ma taqaanid. laakiin hadduu ku dhaho xaggee joogta haddaad tiraahdo ku yiraahdo albaytu waa taqaanaa marka gurigii camal waayo Soomaaliga. the house gurigii aan joogaa, gurigeenii aan joogaa oo kale. gurigeenii meelaad taqaanid oo kuu sheega. marka waa fahmaysaa. kelimada kale meesha la geli karaa alka sidii gurigii hebel macrifada waa fahmay. laakiin hadda alkan wuxuu ku sheegaa Soomaaliga
gurigii baan joogaa ama xaggee aadee gurigii aan aadaa ama xaggee maxaad gadanaysaa gurigii baan gadanayaa maxaad dhisaysaa gurigii baan dhisayaa giidaas dabal iidaas waxay ku sheegaya inaad taqaanid gurigu dhisaayo laakiin xaggee aadee guri maxaa dhise guri xaggee ka soo hadlay guri farqigaasa u dhexeeya ma ogid maaragtay marka waxaa la yidhahdaa laam macrifa alif walaam almacrifa la yidhahdaa laam almacrifa haddaan aqaltanayn long time cari u dambaysa ka waran waad ku soo xasuusanaa anu waxbaan baranayaa maaha anyway baytun albaytun قلم قلم القلم القلم qalin waaye kanna waa qalin maxaa rabtaa qalin ay qalin u rabaa laakiin hadduu ku yidhaahdo alqalam qalinkii waa isla taqaanaan qalinkii rabaa qalin oo isla taqaanin laamal macrifa ku jirto qalinkii oo rabaa waa sidaa qalamun qalim ay qalim لكن القلم ألف لام كتبته لام المعرفة أوكي كتاب كتاب الكتاب الكتاب maxaa akhrinaysaa kitaab you don't know kitaab akhrina ma taqaani laakiin alkitaab kitaabkii baan akhrinayaa you know kitaabku ahaa kitaabkii fulan u qoray ama taariikh u ahaa ama quraan u ahaa ama anything okay kutubka واسلت قانون سيدا ولا وصل شيء كله كانوا واسدوا كله مسجد المسجد كانوا مسجد كانوا والمسجد المعروف أصلت قانين حقيقة كنت كان سامانتا مسجد كي مسجد أصلت قانين وكنت كان لكن تذكر مسجد بتقال مسجد كنت كان لكن واحد كرنيسا إنه سنقول كنت كنين أو مالك كنت كنين أو مسجد كنت كنين إنه لو مسجد كذي ومعرفة هي منكرة عليها منكرة لما قرنا معرفة ولا يقنا أنت سكر دوين حد يقول قد كذا وح أدق مع سامودين معها بس كيما نسا صبر له بهيه عشرة هذا نكون نقو قاضي هذا قرن ويسن يسوي دي يوتيوب كمان كسيجل سحرير that's why I'm here وحنا شو جوا أساس ما عرفت أنا إن شاء الله وحكى له فائدة سنة هذا قلدنا وإله وأساس كرتان العلم بين التلاميذ بلا مبته يا أرتيت الحدود العلمي ذا هذا وهذا ويدت بقى سو صحاني ما عرفت يا you don't believe me friends بدن بقول القرآن كويس ما شاء الله مركزي قل كي عادي جاي سو قال ما عرفت friends كي marka gabar xasuusta ay tiri maaragtay comedian gabar Soomaali mathalayso oo dadka qosol siinaysa Ingiriis marka timaheedu ay qaawanayeen oo kale si fiican u malbisneen sidii koona kaaban iyo xabadkeeda saas oo kale markaas waxay tiri sheekhow waa maxay qofkan asuran neen aan meesha soo saartay maaha qolka quraanka iyo maaha waa qolkii caadiga ah intaan quraanka bilaaban yaman I think anyway marka waan isku xishooday maaragtay sidaadana qofka duqeer ku faro inuu maartay u qaadatid isaga inuu diinta leeyahay ma aha personal khayr buu ku sheegay ilaahay buu messengerkana qalad ma laha fariin buu wadaa marka shaydaanka murun dadka dhaliya marka waxa fiican in dhageysid marka waxaan ku yiri dacfal iimaan bay ka walax tahay iimaanta yari iigiisa waan ku yiri كاسو يتوس سموكته نقول قالا كنا شاي تما قاون عادي بيكون نقول الشيطان أذون وقيم بس كقول دميسا ما قلت مركز جزاه الله خير الله سيو يدعي وانكو الإيمان كهيقوير أيضا ورفع من أغطي ويدعي إلهي إيمان كهيقوسي وحسوس تامي إله مالتي لقيها وقل القرآن كعاوني مقشو خير الله كسي there's people ما أعرف ضد بدنا واحد جرو الأمر بالمعروف سميناه والنهي عن المنكر سميناه ما قرأت إله بك الجزائنا ما أعرف كقبل مرنا anyway
muxaadaro yar baa iska galay koodhe khayr baa idin dhaaf cashirkeen halkaa aan isku soo gabagabeynaya shameys isku soo gababeynaya khayr baa idinkaga tagaya sidaan hore u sheegay waa cashirkii saddexaad number 1 2 iyo 3 ilaa 11 buu gaaraa I think waa khayr baa idinkaga tagay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu